Wasaarada Waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa maanta ka hadashay wakhtiga rasmiga ee dib loo furaayo dugsiyada gobolka Togdheer oo fasax la geliyay kadib markii xanuunka shuban biyoodka uu ka dilaacay magaalada Burco. Gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta waxbarashada ee gobolka Togdheer oo kulan la qaatay maamulayaasha dugsiyada dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa si rasmi ah u shaaciyay in 14 bisha Juun uu gebi ahaanba si rasmi ah u bilaabi doono imtixaankiisa dugsiyeedkan. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramaax iyo isuduwaha Wasaarada Waxbarashada ee gobolka Togdheer Xasan Jaamac Oday oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa. Aan halkan uga sheegayaa go'aanka isla qaateen maamulka gobolka, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada iyo howlwadeenadii la dagaalamayay dhammaanba shuban biyoodka oo hore loo xanibay imtixaanadii anagoo ka taxadiraynay ama ka duulaynay ururka ama isu imaatinka iskuullada dhowrka kun ee qof ay isugu imanayaan ayaa waxaanu go'aansanay maadaama uu hoos u dhacay in badanna ay sugayeen maamulayaashii dugsiyada iyo ardayduba oo magaalooyinkii kale imtixaankii badi laga wada qaaday in aynu maadaama xakamayntiisii ama hoos u dhicii xanuunkaasi uu aad u yaraaday oo uu yahay wax under control in aynu qaadi karno imtixaankii. waxaan u soo jeedinay ama aanu halkan isugu nimi dood dheer dabadeed iyo qaabka imtixaanka loo qaadayo waxaan isla ogolaanay dhammaan maamulayaasha dugsiyada kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawligaaba iyadoo nagu hogaaminaysa wasaaradda waxbarashadu markaanu la tashanay iyo wasaaradda caafimaadka in la qaado imtixaankii laga bilaabo maalinta Arbacada haddii Ilaahay ka dhigo. iskuullada dadka tirada badan haya sida Sheekh Ibraahim oo kale, Sheekh Bashiir iyo iskuullada caynkaasa waxa uu imtixaanku u socon doonaa muddo 10 cisho. iskuullada kale waxay ku soo gabagabayn doonaan muddo 5 cisho ayay ku soo gabagabayn doonaan. sideen wada ogsoonnahayna sanad dugsiyeedkii wuu dhamaaday waa gabagabo sida awgeed duruuftii oo caafimaad ayaa dib u dhigtay in imtixaanadii aynu qaadno sanad dugsiyeedka gabagabadiisii ah. sida awgeed go'aan la isla qaatay ee ah in imtixaanadii dib loo qaado wuxuu ku salaysan yahay bish Arbacada oo bisha 14 tahay in imtixaanadii dib loo bilaabmo. Axmed Kaafi Saleebaan Carab, shabakada caalamiga ee Qorlugud News, Burco.